inshallah, this conversation will be mainly in Somali for those who are watching, and for the rest of you, we'll provide a quick summary at the end in English. walaalayaal maanta waxaan rabnaa runtii laba fariimood oo aad iyo aad u muhiima inaan la wadaagno gaar ahaan shacabka khaas u ah Soomaalida ee degan Minnesota. waxaan ognahay muddadii 3 usbuucna soo dhaaftay in ICE ay runtii joojisay dad aan dhihi karno boqolaal ama gaari karaba 1,000 qof oo ay ku joojisay meelooyin kala badan oo kala duwan. hadda waxaan rabnaa in si degdeg la wadaagno arrinkan muhiimka ah. arrinkan muhiimka waxa weeyaan ICE markii ay dadka qabanayso gaar ahaan muwaadiniinta dadka ama green card holderska ama qofka citizenka ah ama qofka kale xitaa sharciye kale ee wadanka ku jooga si khalada ay u qabanaysaa waana ognahay. laakiin hadda markii la weydiiyay ICE dadka ay qabanayso way dafiraysaa waxayna dhahaysaa maba qaban bad taas oo kala. waana ognahay dad badan inay joojiyeen handideen cadeeyeen inay yihiin muwaadiniin. marka maanta maxaa niga baahnaa fariinta ugu muhiimsan waxa weeyaan waxaan rabnaa shacabka Soomaalida ah inay soo wacaan hay'adda CARE. waxaanu la shaqeynaynaa hay'ado kale oo hadda ka shaqeynaya sidii loo joojin lahaa dibtan lagu wado. waxaanu ku joojin karnaa oo aan rabnaa dadka shacabku in ay dadkii ay qabteen ICE ama 5 minute qabteen ama 2 minute qabteen ama muddo dheer hayeen qof walba xitaa ID-ga ku weydiiyeen oo la hadashay inaad soo diiwaangelisid. diiwaangelintaasina muhiimadeedu waxa weeyaan inaan la tagno dibta aan qabno oo ah in ay dadkani ay u imaadeen inay handidaan dad muwaadiniina. taasaan rabnaa inaan ka doodno kama doodi karna haddaanu hayn tirakoobkii dadka la handiday ee saa loo dhibay. waxaan rabnaa qof walbaba inuu soo waco telefoon numberka CARE waana ni sheegana insha Allah waxa weeyaan 612-206-3360 waa 612-206-3360 markaadna soo wacdid waxaad noo sheegtaa maalintay ku qabteen xasuustaad intay tahay goortay ku qabteen hadday dad kale meesha joogeen iyo statuskaaga oo tahay ama citizen tahay ama green card holder. waxaana qof walbaba inaynan arrinkan aynan yareysan. hadda insha Allah waxa soo iman kara oo aan rabnaa bishaaro inaan bulshada u sheegno dhaqdhaqaaq aan hadda diyaar u nahay anaga iyo hay'ado badan oo arrimaha ka shaqeynayna. laakiin dhaqdhaqaaqaasi waxa hadda ku xanibanahay waxa weeyaan diiwaangelintaas ay dadku ay sameeyeen oo ah diiwaangelin muhiim ah oo dadku ay yiraahdaan maalintaas uu qabtay ICE ama maalinta makhaayada aanu joojin ama maalinta guriga aanu ka soo baxay ama maalinta shaqada ama xitaa maalin aanu meesha socdo inay istaajiyeen hadduu waqti dheer yahay hadduu waqti gaaban aha. qofka muwaadinka ee wadankan jooga inay ICE eriyato waa khalad. wadankana dastuur buu leeyahay qawaaniin waxa jira ku saabsan dawladda Minnesota kuwa ku saabsan countiyada kuwa ku saabsan degmooyinka sida Minneapolis oo kale iyo kuwa federaal kuwaas oo dhan baan adeegsanayna sidii aan iskaga celin lahayn dadkan maanta dagaalku nagu soo qaaday. arrinka labaad waxa weeyaan gaar ahaan waan ognahay dibtan inay dhaawac weyn u gaarto dad badan guriga joogaan. sabtidan soo socoto 10 iyo barka ama 11 subaxnimo wixii ka dambeeyay waxa la sameeyaa banaanbax weyn oo aan u yeernay shacabka Minnesota oo dhan inay ka soo qayb galaan. banaanbaxaas oo laga bilaabayo Lake Street iyo Bloomington meesha iska jiraan wuxuuna ku afjarmayaa oo la rabaa si xooga in loo taageero reer Carmel iyo runtii businessyadu ay leeyihiin dadka danyarta ee gaar ahaan Soomaalida iyo Latinadu oo Lake Street runtii aan ku leenahay businessyo badan. marka waxaan rajaynaynaa dad kumayaal qof inay ka soo qayb galaan banaanbaxaas iyo mudaharaadkaas. waxaan rabnaa dadkeena in laga arko oo la arko dadkeena inaan ka baqayn oo aan dad muwaadiniin nahay gaar ahaan aan runtii aan mahadnaqno dadka badan ee shacabka u soo baxaya danteena iyo inay nahiiliyaan gaar ahaan fariin gaar oo dirano reerka ama dadka kule businessyada kule Carmel. maalintaas sabtidaas waxa loo baahan yahay in aan businessyadu furnaadaan oo aanu ka faa'iideysano aan soo dhaweyno dad badan oo runtii noo noqon kara macmiil cusub oo nagu xidhnaan kara. qof walba inuu diyaar garoobo maalintaas sidoo uga faa'iideysan la waxa suurtagal ah within saacado gudaheed in kumayaal qof ay Carmel dhex wareegaan iyaga oo raadinaya si ay ku taageeraan businessyadeena xitaa iyaga quruxdeena iyo nidaamkeena ay arkaan. marka shacabkeena waxaan rabnaa inaan si gaar ah u diyaar garoobno insha Allah labada fariinta ugu horeysa ah in aan runtii aan soo diiwaangeliyo
arrimaha ku saabsan qofkii ay qabatay amba ay la hadashay amba si gooni u hadashay talabaadna waxaan rabnaa si gooniya insha Allah in ay maalintaas sabtidaasna banaanbaxna laga qayb qaato tukaanadeena aan furno sidii aan uga faa'iideysan insha Allah siidarna mid saas ka weyn oo kalena waan sameyn doonaa laakiin hadda Lake Street baa isku afgartay in la support gareeyo Latinada iyo Carmel oo ku afjarmayo banaanbaxas hadda waxaan ku soo dhaweynaa insha Allah haboon oo iyaduna intaas si fiican loogu celinayso السلام عليكم ما سنتهاي جيلاني سيدو جيلاني دين شيغي وحرمنا هدات سومالي وين تكون نول ان قبل كان مينيسوتا ان نلا سو خريرتان qaas ahaan labada magaalo mataanaha ah iyo darisyada magaalaha ku dhow oo dhibaatada ka soo gaartay dadkaanito ayska oo saddexdii wiiga ugu dambeysay aragteen inay xoogaa Soomaalida dhibeen xoogaa ayaan dhignay inay aad noo dhibeen marka fadlan soo baxa wadankan ku noolnahay waa wadan raba in wax kastaba ay leeyihiin magac saacad waqtiga loo qabtay inay jirto wax daarada la yiraahdo ama soo idin sheegay Jeelani diiwaangelintaas maxay masaamaxaysaa in la yiraahdo dibkaas baa ku dhacay dadkii taas bay ugu dhacday dibkii iyo wixii markaasito oo lala tiigsanayo sharcigana la raaco hadii laakiin aynaanu heenin arimahaasito wax laga qaban karaa ma jiro marka fadlan soo hadla ta kale oo idin sheegay Jeelani ayadana oo ah mid banaanbaxa ah soo baxa saan dhowr jeer oo kale ay ku sheegnay arimaha ka dhaca wadankaanito hadii anagoo boqolaal aan soo baxno awoodeena waa la muuqanaysaa hadii laakiin saan iska joogno guriga aan iraahno ama hebel iyo heblaaya meeshii aad aan gurigan joogaya wax macna ay noo suubinayso malaha aan soo baxno banaanbaxaani dad badan baa nagala soo qayb galaya ama ajaanib ha ahaato ama dad kale oo Afrikaanka ha ahaadaan marka soo wada baxa waa u baahanahay inaan isgarab taagnaano waa u baahanahay inaan dhibkana lagu soo hujuumay aan iska celin saas iga celin karnana waa taa idin sheegnay inaan isoo diiwaangelisaan waa ku soo celinaya haddana inaan isoo diiwaangelisaan inaan sheegtaan wixii dhibaato idin geystay waqtiga idin geystay alla soo xiriirta hay'adda care iyo idinkoo oo soo baxay sabtigan hadduu ilaa raali ka noqdo waa aragteen waxa ka dhaca Carmel iyo meelasha aan ku leenahay business-yaasha marka soo baxa oo aan iska maaragtay hujuuna dadkaanaytuna soo weeraraya waa mahadsantihiin سؤال جبته كجونا ذيك إن شاء الله سيجارة قلنا إن وتاجرنا أما سيجارة وجم هذا إنه وربحين الصومالي ذا رنتي يجون جهد وين جسمية يدل بدن السمية سيد الدقدقة أي رنتي أي معلومات كي أرمها أي سكوساب سنة كقيب قاتين يجو أولي بن حتى سيجارة حتى لوسو هندي ذي يجو بقى أو كقيب قاتين رنتي إن الدوبان أو أي تسان شعب كصوماليات دبتة دعيسة يصير نسك الدفاع لها إن شاء الله أرين كمان كبحدونا سيجارة وحرابة دتكين الجاليدنا حلي كان ما حلي لبخيلي ما فيديو هلا شير قريو معلومات كهل سكارسيو إن شاء الله أرين كمان كبحينا madaxweynahan iyo dadkan haddan haystay waxa uu maleynaya inaan nahay dad aanan fahansanin wadanka waan fahansanahay dastuurkeena wadankan waan fahansanahay xuquuqdeena waan u dagaalamayna sidii insha Allah aan uga faa'iideysan lahayn runtii dhaqaaq badan u sameyn lahayn oo aan iska celin lahayn dadkan u maleynaya inaan nahay dad aanan isku duubin dad badan oo cadaan iyo hay'ado badan oo nala shaqeynaya ururo badan iyagana ku mahad celinayna runtii sida fiican ay nagu soo taageer muujiyeen haddana waxaan insha Allah haddana waxaan rajeynayaa inta in ka badan aan ka sii wadno insha Allah kamid noqo oo ku soo biir saaxiibada Mustafa Show noqo mid kamid ah taageerayaasheena ku xiran Facebook TikTok iyo waliba YouTube keena oo kala soco wararka Soomaalida Koonfur Afrika iyo caalamka intiisa kale barnaamijyo diini ah iyo wacyigelin fadlan follow us subscribe like and share ma sanidin